waxaa halkan si niyad ugu hambalyeynaya ardaydeena ku gudubtay imtixaanka dowladda federaalka ee dugsiga sare guul wacan. waxaa kaloo rabaa inaan la hadlo waalidiinteena qaas ahaan waalidiintii ardaydooda ee nasiib u yeelan waayeen inay gudbaan. waalid ardayga oo dhici karaa waxna way ka qaldami karaan. waxaa laga yaabaa maanta inuu xanuunku dareemayo inay tahay mid aan la soo koobi karin. adigana waa dareemi karaa waalid ahaan dadaal badan aad soo bixisay waqti badan aad ku soo bixisay. laakiin hadda maadaama wixii dhacay ardaygeena mar walba wuxuu waajib ku ah inuu dadaalo. laakiin anaga waalid haddaan nahay waxaa waajib nagu ah dhiirigelin joogto ah hadday ahaato ardayga inuu kaalintiisa kasoo bixi waayo ama hadday noqoto inuu kasoo baxo labadaba. taas waa ula jeeda mar walba dhiirigelinteena ma ahan mid natiijo ku xiran. hadda taane ardaydii ee u noqon weysay in ay ku guuleystaan mar labaad waxaa rabaa inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed in xarunteena aan diyaar u ahay inaan u qabto la talin cilmi nafsi ama la talin waaci ah ama la xiriirto horumarka bini'aadanka taasoo aan wax qarash ah uga qaadan doonin. mahadsantihiin. halkani waa xarunta Carefesol, xaruntii ugu horeysay ee nooceeda ah ee lagula tacaalo dadka qabatiimay isticmaalka maandooriyaha lagana hirgeliyo Soomaaliya. halkani ma aha xabsi ama goob lagu jirdilo dhibanaha ee waa goob uu ka helayo dib u kabasho dhameystiran. waxaa sidoo kale u sameynaa bukaanka wacyigelin nafeed, tababaro xirfadeed, la talin caafimaad iyo ka dhaqista qabitinka maandooriyaha. Carefesol saaxiibka dhibanaha. wixii faahfaahin waxaad nagala soo xiriiri kartaan taleefoonnada shaashada kaga muuqda.